madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shirka golaha wadatashiga qaranka ku casuumay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo khilaaf culus oo u dhaxeeyo maxaad kala socotaa shirarka ka socda Nairobi iyo Dubai ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirkan uga hortagayo maxay yihiin kuwaas yaa ka qayb galaya yaa sawado oo ka dambeeya warbixintan ayaan rabaa inaan kugu wadaago saaxiibayaal soo dhawaada idinkuna sidee baad u aragtaan in Saciid Dani lagu casuumo shirka golaha wadatashiga qaranka suurtagal sama tahay inuu ka soo qayb galo shirkaasi aragtidiina nala wadaaga soo dhawaada madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa casuumaad u diray dhammaan hogaamiyaasha dawlad goboleedyada dalka oo uu ku jiro madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu casuumaadan uga dan leeyahay in laga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee dalka oo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo dhameystirka dastuurka madaxweynuhu waxa uu casuumaadiisan uu ku diray hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo la xasuusto sida weyn ay u kala tageen tan iyo dib u doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud bishii May ee sanadkii 2022 Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan waxa uu war-saxaafadeed uu soo saaray oo ku sheegay inuu xiriirka ugu jiray dawladda federaalka Soomaaliya maadaama uu sheegay in laga gudbay oo la laalay dastuurkii ay Soomaali ku heshiisay isaga oo sheegay in inta lagu soo laabanayo dastuurkaasi uu joojiyay wada shaqayntii oo la lahaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka iyada oo Puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ugu yeereen madaxweynihii hore ee Soomaaliya lama oga hadaba sida ay suurtagal ay ku noqon doonto in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka soo qayb galo shirka golaha wadatashiga qaranka oo la go'aamiyay in 20 ilaa 21 bishan Abriil aynu ku guda jirno oo ka dhaco xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho madaxweynuhu waxa kale oo uu casuumay hogaamiyaasha dawlad goboleedyada Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir haddaba maxaa ka soconaya magaalooyinka Nairobi iyo Dubai ee adigu aadan ogeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu qorshahan uu uga dan leeyahay inuu ka hortago qorshe ay wadaan qaar kamid ah hogaamiyaasha dawlad goboleedyada iyo xubnaha siyaasiyiinta ah oo ay doonayaan in la yeesho aragti midaysan oo looga hortagayo dib u eegista lagu sameeyay dastuurka oo ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu saxiixay shirkan oo madaxweynuhu ku baaqay ayaa imaanaya iyadoo ay socdaan wada hadaladii ugu horeeyay oo la doonayo in la isugu soo dhaweeyo madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe kuwaas oo iyaga laftirkooda uu khilaaf culus oo kala dhex galay kadib doorashadii 15kii May dhacday ee lagu doortay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa kala socda qorshe kale oo dawlad goboleedyada la isugu tagayaan magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta halka uu ka bilaabanayo sidii ay ku gaari karaan aragtiyo isku mid ah oo ay ku soo gudbiyaan marxaladda xilligan iyada oo ila wareedyo muhiim ah ay sheegayaan in shirkaasi sidoo kale uu qaban qaabinayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa jira in ilaa ay iminka hogaamiyaasha dawlad goboleedyadu aanay cadeynin mowqifkooda ku aadan wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka marka laga reebo Puntland afarta kale ee madaxweyne ama dawlad goboleed waa ay ka aamuseen baarlamaanka federaalka Soomaaliya markii uu ansixiyay dib u eegistii lagu sameeyay dastuurka madaxweynuhu uu saxiixayna ma jiro hogaamiye soo dhaweeyay ama diiday midna dhammaantoodna waa ay ka gaabsadeen ka hadalka aragtidaasi waxa jira hadaba in iminka ay soo baxayaan xubno dawlad goboleedyada kamid ah oo diidan wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka iyagoo u arka in xubno gaar ah oo siinayo awood dheeri ah waxaana hogaamiyaashaasi kamid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo sidoo kale lagu waramayo inay jiraan aragtiyo isku khilaafeen dawladda federaalka oo ay ka mid yihiin xubno wasiiro ah oo dhawaan lagu soo daray dawladda federaalka kuwaas oo sheegay inaan lagala tashanin haddaba sidee baad u aragtaa shirka uu madaxweynuhu ku baaqay suurtagal ma tahay in hogaamiyaha Puntland uu ka qayb galo iyadoo khilaaf intaas leeg uu jiro aragtidiina nala wadaaga waa mahadsantiin saaxiibayaal